marka jamaacadada khaarijinta afar bilood bay baxayaan afartan bay baxayaan muddada ha eegine muhiimadda ay u baxayaan eeg wallaahi summa wallaah naftooda inay islaaxiyaan bay u baxayaan inay culimmada iyo cilmiga soo jeclaadaan bay u baxayaan in salaada ay soo xafidaan bay u baxayaan in walaalkooga muslimkee dayacan gacanta ay soo qabtaan oo masaajidda soo geliyaan bay u baxayaan waxaan xasuustaa dhowr iyo 10 sano ka hor jamaaca magaalo ku baxday magaaladii markay ku baxeen dadkii way dhegaysteen way la yaabeen waxay yidhahdeen war inninku dadkii wanaagsanaa ee masaajidda camirayay baa tihiine dadka xaafadan degan ee salaada aanan tukan mid qaado jamaacadda u geeya in odayaa yidhi oday dariskayga ah oo 70 jir ah oo weligii salaad aan soo gelin oo khamrigana aan habeen iyo maalin u kala saarin ayaa ila darisay hadduu igu kiin arkaanoo inila socdana dhib baa ay qabsane waa oday dhib badane aqalkiisa sheedaan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay in soo gaadhana inninkaas gaadhsiiyey marxaba albaabkii bay garaaceen waa 5tii galabnimo isagoo hurdo ka soo kacay quradihii khamriguna miiska u dul taallo islaan male ilma male waa keligii buu nool yahay dhowr iyo 70 jir saa u qarqarhaya way ag fadhiisteen albaabkii markuu ka furay idhan jamaacaan nahay masaajidkaan kaa soo booqannay waa ku soo ziyaaranay ma ziyaara ziyaarada waan aqaanaa u kaadiye buu yidhi qolkiibuu ku noqday lacagar buu soo qaaday ziyaaradii wuxuu moodaya qoladii tariiqadaha ee suufiyadu berigii hore reeraha waa ziyaaradii shaqabele keena oran jir iminku iska dhammaataan u malinba ana xaggayga jabuuti iminku iska dhammaatay xaggiinna mooyaane imika ziyaarada waxaa isku badishay ilaahay dartii baa qofka loo ziyaaranayaa oo waxaa badishay ilaahay dartii baan kuu soo buuqanno kuu soo ziyaaranay waxaa duyana kuuma sidno waxaa duyana kaama doonaynee khayrka jamaacadda ka yar dhegayso aan wada dhegaysanaya markaasuu yaabay wuxuu war dad lacag diida markii lacag ma qaadano weli intaan noolahay waa qof lacag diida waa ii kowe maxaa tihiin may annagu adeer lacag ma qaadanee laakiin waqtiga dadka ka qaadanaa waqtiga 20 midhan ma nasiin kartaa soo fariista wax lacag diida maanaaba arkay buu la yaab bay ku noqotay moqto khamrigiina halkan ay taallaa jamaacadina halkan iska fadhiisteen indhahay ka qabsadeen waxay yidhahdeen annagu jamaacad waxaan nahay martiya magaalada heblaayaan ka imanay dadka muslimiintaan ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweynna waan soo buuqanaynay dhallinyaradana masaajidkaan ugu yeedhaynay halkii hadalkaa markay yuu furfurmay wax lacagana ma qaadataan may ma qaadanno oo lacagta ayaa inaga bixiya bilmaali wannafsi bilmaali naftayadiiyo maalkaygaan ku soo baxnay ilaahay bay markaa kala hadleen cadamadiisii aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii u fikray markaa wuxuu yidhi hadalka aad igu leedihiin weligay ma maqal buu yidhi weligay wax hadalka iila soo gala maxaad iga rabtaan adeer ii sheeg lacag waad igu diideen oo wax kale sheegtay waxaa kaa rabnaa annagu 2 qofaan nahay amiirkii iyo jamaacaddii odayaashii miskiidkay joogaane inaad jamaacadda u tagto waad soo salaantid bas intaasaa kaa rabnaa ma intaa usuhaa waa niraaci dharkii buu soo xidhay dhaladii khamriga halkii buu kaga yimid quradii la socdo masaajidkii buu jamacadda u soo raacay wuxuu yidhi salaad ma aqaano waxaa la waxba male iska weysayso weyse ma aqaano kana ku ag fadhiisana siduu sameeya u sameeya salaad ma aqaano kana kugu ag tukane siduu isagu u sujuudo u sujuudo u rukuucan u rukuuc halka intii uu sameeyey ayay liin yar iyo muus yar iyo shaah yar bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafaddu way daawanayaan odaygii hebel baa maanta tabliiqii miskiidka soo geliyeen war tabliiq ma soo gelin ilaahay baa soo geliyey yaa soo gashay la in yahdiya allaahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumri nacam cali nebigu markuu hadalka ku lahaa dagaal buu u diray dagaal khaybar buu nebigu u diray inuu soo baabiyo yahuud laakiin nebigu ka daba hadlo wuxuu yidhi cali ogow miyaan la dagaalamaa buu ka yidhi ilaa sideeda ay ka noqonayaan markaa buu nebigu cali dhegaysa buu ka yidhi mid iyaga ka midoo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geelagiisa casas kaaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dan lahaa hadday dadku iyakoonan lala dagaalamin ay diintii kaa dhegaysanayaan oo diintii kaa qaadanayaan dagaal meesha ma imanaya ogow dacwa muqaddam calaa kulli shay dacwaddaa ka horraysa wax walba
جماعتي وحيرة ورانكم ما سوق قليله إلهي بس سوق قليل داية صلاة المغرب ولا تكذي بيان كيف ولا دقيستي عشاء كيف ولا تكذي عشاء كي أنت سوق حبيبي مسجد كي كانان هذانا صلاة دي فجر السوق اللي هي سكوس حد المسجد كي سوق عليه تضمن مع الموت السوق صلاة دي لازمي دنبيجي كجرنا كدح بحي تيسي باتي مدو إلهي وكم النقاط وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها وفي حديث النبي يقولها انت تاكين لك مركي النار توقعدو أيا إلهي جل وعلا قدرك هرقو قرنا أيا الله هرمرين دانا أعماش الجنة الله وعين تضمن مع الموت بعبادة استي صدابا للرجل إلهي جنين وكقلي لأن خاتمة بإله أجي حسن الخاتمة وشيء غالية أنك جماعة بري أنك خارجين ودنا قال هذا شيء أيا الله نوشة إن مسلمة أو صومالية لكن ماشي جوجنا وحجري 40 كيلومتر وابوقنا إن أضيع الدادي ساكو قياس الدوري اللي حدا جر مركز وياه جماعة هالكي كتير حق أيه ضلكي وان كيما محاولتي ما دين ضدك مسلمين هنا سووا زيارة بس وخرج كيا نقبل حيا بالمال والنفس وفيزا وطن كان لما هلا سيادكو عشان إلهي باب بحيا رزقك هدوي ما دالكن وادي من أما عزكو كالي ما دلكو كالي حد دونا سالمك جماعة دي مسكيت كاسي جوجام إلى أن الرعدان دونين لأنه مسكيت حد ما تجاوز حد ما كلنا صلاة دايدنا إلهي بقولي لكن مرة هدات بري ما جوتان واحدة ها وهني ما بقولي ذلك الصوماليين وركي سرباي صوماليا هي كاله صوماليا وركي سوالو قسينا صوماليا إسلام لماذا نزعنا وقته صوما أبقى صومالي وحسينا يا هاي نمري شو نوي من المعلم تيدمبه بنصور دويني نصيب جماعة دو حلا سعودة قضي مركي استهودين ضدك الصومالي مركي استهودان مد قرابة دي سي إزقرتين مركز وين بريك هبل هبل هذيك اللي ورنجري بها حد كشقة سايمة كوضم كم شقة أيه أنا كنو ديمن يقول الشقة ما جرتي لكن جامعات ما نفهم وضل كي مركي لجوجنين جامع يا هيدا وقانت كودي من بيرسطان محيط هاي بليشك وحد حرير كلا بدأ الدولة ودول الدرس ككده حيان برتاوي علاقة بين الدول مركز وكوير حرير كهذه إلهي نقدر حيما برتا مركز ولمي صلاة ده يدبوا قلب مركز حرير كهذه إلهي نقدر حيما برتا مركز ولمي بروفيسور هذا جامعة ده ينيدقة حرير كهذه إلهي نقدر حيما كهلان يكون ما يقانان مرقاس يقول وحمد برن بالقول حديث كان ماذا مقالوا النبي يقول يا هي أعمار أمتي ما بين 60 و70 عمر الغالب كأمة يدبوا النبي يقول وتضباطني لحدا انت أوضح حيسا أدقنا واحد لا دوري لحدا جربانا هي انتهت سنة لندن تابو كي صلاة دينا واحد لا قلب حرير كأذي له نقد حيانا والضعيف كون وحكود دقنا واحد حرير كما بيقانان سدي كلها تهيبو كي أو عقلك أجر رشد جاي هذا الكثير والبصير يا جماعة وتشري لكن نكي هبينك عشاء بركو تقعد قريج يسيبو تجي صلاة دي فجر يسوق علابتي وتو جماعة دوي مدي وعول هذا الكاد يقول ترى هذا محلك سيحكر ويقول هذا الكاد حلق يقول ترى هذا وأكيد سكر ويقول داعية بركو نقول ضد وناكسن الراعو ومد خير ورجينا يو ومد وناك كفي كريو هذا القيس إلهي وحوق لنا يا تأثير سامين بو هذا الكاغو يالنا يا هذا سوء إصلاحا يا ومدن إصلاحك كسو قيب قادة نيسا قيل هذا عن قيل إنه أكبت بعد إنه إن دين تكوض الشقين ودن يود إن شاء الله وهذه لنا قدل بين دين تأبحنا فانبحنا وإذا استنفرتم فانفروا بنبي قولي هبينك الجماعة هنا مركز كسو قيب قالك كلن كالدينات بفضل الله عز وجل هبينك إنه تجمعين هيبان وفي رسول مساعدك وأبو حسام يا بهديته الله زماننا دعوة waxay soo martay xillihe jamaacadu miskiidka markay iska taagaan laga kala yaaci jiray maantana dacwadu waxay maraysaa
in maraakiistii halkaa ay joogsato afka oo ijtimaacyadii markii la yidhi halkan baa lagu qaban 2 sano kadib meeshii yaraatay meel kale loo guuray meeshii way yaraatay hadda annaga Jabuuti waxaan maraynaa meeshii saddexaad ijtimaacii u horeeyay 92 200 qof ka soo qayb gashay 10 sano ijtimaaci miskiidka markii lagu qabtay magaaladii dhexda xidhantay miskiid kale weyn bay dawladdu ku deeqday dacwadii haddana kiina uu xidhmay kiina waa laga baxay bannaankii magaalada loo baxay bannaankii magaaladana sanadkan 40,000 qof ka soo qayb gashay ijtimaaci 40,000 qof hargeysana waad ogtihiin war khayrka baa inoo baxay khayrka ma ku darsanaa khayr ها ده هذا ده دقيست الدين هذا وناكسن نقو